بسم الله وكفى سلام الله عليكم إخيار ميلو البود الدنيا دا كجوكتان ماشان وردك دقو هاليسا ايان إذن كلا وداقينا هداينو نهاي ورباهينتا اما جامع عدا Southern Media Corporation مر لباد اي مرسد دحاد وحان إذن لان نهاي كوسو دوادا Southern Media Corporation امرو الباد كهشان وررك حقيقوين كاسياسة دا اسديدن يكوه اسأقل اسرصبين يجيس كافريكا soomaalida meel walba ay joogto inta qusaysa garoonka aadan cadde international airport ee magaalada muqdisho digniin degdeg ah ayaa hadda macnihii la soo saaray dhammaan shaqaalaha garoonka waxaa lagu amray in ay galaan dhul hoostiisi oo ku yaala garoonka oo marka qatar ay timaado loogu talagalay in shaqaalaha meesha ay ku badbaadaan markayse shaqaalaha amarkaasi waxaa siiyay dawladda Soomaaliya uu garwadeenka ka yahay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud sababtana waxaa lagu sheegay in diyaarada noocyada isqarxiye ah ay ku qarxinaya meesha ay ka imaanayaan nimayo virus-kana ay dhibay aniga marka aan arrimaan oo kale aan ka hadlayo mar walba virus culus la igu soo furaya marka shaqaalaha looma sheegin diyaaradahaasi isqarxinaya oo ma arkaysa macnihi garoonka ku soo wajahan meesha ay ka socdaan lama sheegin wadan hebel lama dhihin ma arkayse macnaa urur lama dhihin waxaa lagu yiri nimayo diyaaradaha soo wajahan garoonkan ma arkayse macnaa raba inay isku qarxiyaan marka hal la xaroodo shaqaalaha hadda qaarkood hadday sii socdaan oo ma arkayse meel god ama dhul hoostiisa ah oo garoon ku yaal oo u astaysan ayay hadda ku qulqulayaan sida sirdoonka Southern Media Corporation oo xaqiijinayo hadday doonaan ha qariyaan warka ama hadday doonaan ha sheegaano waa xaqiiqada taagan waay marka ma arkaysa arintaasi haddii ay ma arkaysa sida ay tahay ay u dhacdo waa halis aad u weyn haddaysan dhicin xitaa halis waay mar haddii ma arkaysa garoonka aadan cadde diyaarada is soo qarxiya ayaa ku soo wajahan la leeyahay isqarxinaya khatar waay maxaa yeelay anagu haddaan nahay Soomaali ma lihin imkaaniyaadkii macnaheed diyaaradaha garoomada caalamiga ah ee difaaciyada cirka waxba ma lihin annaga isku mashquulsan oo reer hebel ayaan ku mashquulsannahay sideen reer hebel dhul uga kacsada hawiye oo dawladii madaxweyne ka ah wuxuu ku mashquulsan yahay sidee daarood isaga reebtaa digil aw miriflana dhulkiisa aad u qabsataa oo dhulka aad u gelisaa sidee ma arkaysa macnaheed jareer weyne neefta aad ugu dhajisaa sidee banaadiri aad haraati ugu dhufataa si aysan u noolaanin يعني أنك أنت أصلاً كم مشغول صنعه ما أين سميسن دفاع قرن ربعة شيخ شريف شيخ أحمد هذا الكيسان صوبة حية ولها صوماليا ما أنت هل جوتو وصفي عن أضج على مكرتا ما لهم بويري ورنتي عيدا ماذا صدق كنا عسكري باللودي بي حسن شيخ محمود aviation كي فيريا aviation كمعني قيبته أو شعب كان لهين ديارها قيبته ملترجة ولي ما أين سميسن shacabkiina imaaraadu u dhiibay oo waxa weeye toddobaad walba qoyska madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxay ka qaataan 6 milyan lacag gaaraya fiiri xaasaskiisi ayuu u dhiibtay aviationka waa macnaa aviationkii dhamaa ee dalka Soomaaliya toddobaad kasta way imaanayaan boorsooyinkooda ay la imaanayaan marwooyinka sharafta leh ee madaxweynaha waxay qaadanayaan 6 milyan bay ka qaadanayaan aviationkii shirkad imaaraad loo dhiibay shirkad kale markii hore ay u dhiibeen Turkiga xanaaqay haddana isla iyadii un baa loo gadiyay mid kale loo dhiibay imaaraada hadda haysta waatan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka digay uu yiri nimayow hawadaasi controlkeeda Soomaaliya aan ku soo celinay oo ma arkaysa annaga gacanta noogu jiro khatar weyn bay ku tahay in imaaraad loo dhiibo maxaa dhici kara marka hadhowdii diyaaradii imaaraadka aanu rabin khalkhal baa la gelin karaa diyaaradii ay rabaana way keeni karaan marka waa halis inteeda la eg Soomaaliyana maantay macnihii gobolada xataa diyaaradaha u badan mise been baan sheegaya Baydhabo iyo Xamar ma arkaysa 247 kilomitir ah diyaarada ayaa isaga kala gudba oo umada jidadkii waa laga xiray oo waxa weeye isbaarooyin baa yaala shabaab baa goostay macnihii waa lagu qali karaa waa lagu kufsan karaa meel la isugu gudbaa ma jiro gaalkacyo iyo ma arkaysa Xamar waa diyaarad Boosaaso iyo Xamar waa diyaarad Garowe iyo Xamar waa diyaarad Hargeysa iyo Xamar waa diyaarad tuulooyinkii xataa diyaarad loo raacaya marka sida awgeed Kismaayo iyo Xamar waa diyaarad Baraawe iyo Xamar waa diyaarad Marka iyo Xamar waa wariyaaqa buura kaba iyo Xamar diyaarad
belidogle daafeed meel walba diyaarad marka xasan sheekh maxamuud helikobtaradan macnihii talyaaniga uu siiyey wuxuu ku koobay qoyskiisii iyo caruurtiisii keliya inay ku safraan marka khatartaas ayaa taagan wixii intaasi ku soo kordhaana waxaa weeye waan isla joognaa garoonka xaaladiisu waa hadha waana arrin halisa wallaahi arrintan ma sahlana anigu kaftan uma qaadanayo arrintan arrin sahlan maahan waxaysan arrin sahlan u ahayn yacni diyaarado isqarxiya maxaa noo keena annaga garoonka aadan cadda in loogu kala fiigo diyaarado isqarxin baa soo socda ee shaqaalahow dhulka hoostiisa gala shacabka soomaaliyeedna ma dhulka hoostiisa ay galayaan maxaa dhacaya haddii hal diyaarad ay isku qarxiso garoonka aadan cadde gantaallo sanaag iyo sool ku dhacay baa la sheegayay ilaa hadda aan la ogeyn marka wixii nagu soo dhacaya garoonkeennan lama oga miya sheekada aad bay u culus tahay ilaahay tawfiiqda hayna waafajiyo waxaan rabaa inaan arrintaasi macnihii ummadda gaarsiiyo life jacayl uguma soo noqonin haddii qof uu hadlaayo jiraa qof baan daqiiqado siin doonaa kadibna waan ismacsalaamayn doonaa haddii allah awoodda leh uu ka raali noqdo walaalkaasi hadda maraykanka uu naga soo wacay wuu ku jiraa aviationka iyo wuxuu aqoon u leeyahay iyo khatarahan uu ka hadli doonaa daqiiqado kooban soo dhowo walaalkay halo waxaan u malaynayaa walaalkeenna ma arkayse ma hadlaayo muuduu ku jiraa miya ma oji waa ku celin doonaa insha allahu tacaala garoonka aadan cadde xaaladiisu ma saxna maanta waxaa laga yaabaa dhammaanteen in ehle ay nooga jiraan salaamu ullaahi calaykum halo walaalkeenna ma hadlaayo cilladda ma garanayo waa xaggiisaan u malaynaya waayahay walaalkeenna ma hadlaayo walaalkanaan jaani siin doonaa biidni illaahi baari sheekada aaday u culus tahay wallahi meel xun baasha meel xun ay gaadhaya haddii diyaarado isqarxinaya imaanaya la leeyahay sheekadu way culus tahay cabdisalaan soo dhow hello what's wrong maxaa qaldan hello meeshaan cilladaa jirtay cabdisalaan waa ku maqlayaa macallin si wanaagsan baan ku maqlaa haye maxaa ku dari lahayd haddii garoonka la yidhi diyaarado isqarxiya ayaa kusoo wajahan maxay taasi dhalin kartaa wallaahi horta waxay dhalin kartaa horta waa fashil weeye waa arrin fashila weeye muxuu ahaa waxayna fashil ku tahay dowladdii wax ka difaaci lahayd haddayba tiri idinku carara oo dhulka hoostiisa gala taas waxay ku tusaysaa fashilkeeda bay ku tusaysaa in hataa cid kastoo soo weerarta ay muxuu ahaa waxay rabta ka samayn karto iyaga laftigooda kuwa dowladda sheeganaya baa halis ku jira haddayba yidhahdeen dadkay difaaci lahayd carara dhulka hoostiisa gala midda kale soomaaliya ma lahaa raadeerada muxuu ahaa diyaaradaha dagaalka lagu fiiriyo oo xadka haddii lasoo galo diyaaradaha dagaalka ma lahaa muxuu ahaa dhaqdhaqaaqooda muxuu ahaa raadeeradii lagula socon lahaa maahan ma laha 4 diyaaradood oo talyaanigu soo siiyeyna xataa baasuukaha gaaraya beekaamka dagaalka ma qayb qaadan karaan muxuu ahaa hawada ugu fog ay gaaraan hadday xataa cirka isku shubaan oo hawa karo gaaraan muxuu ahaa waxaa gaari kara dashiikaha iyo seekaawgaiyo baa gaari kara muxuu ahaa marka hadday geedaha hoostooda ku socdaan oo geedaha dabca inay ku gabadaan markay gantaalaha tuurayaan muxuu ahaa sababtoo iyaga laftigooda waxaa lagu xidhaa dashiikaha iyo qoryada noocaasaa lagu xidhaa marka dashiika intuu wax ka dili karo ka dhulka joogana waa soo ridi karaa marka waana diyaarado loogu talagalay ciidamada inay qaadaan oo looguma talagelin muxuu ahaa diyaaradaha ma ahan muxuu ahaa hawada ay rabaan wax ka muxuu intay ka duqeeyaan haddana ka laaban kara ma ahan oo hadde adduunka waa aragtay dee diyaaradaha la haysto sida faransiisku ku sameeyo oo kale etoobiya ay leeyihiin muxuu waagii hadda ay muxuu ahaa eritrea kula dagaalamayeen miiraaska iyo la yidhahdo diyaarada waxaa jira noocan waa horaaba laga tegey noocan meel laga isticmaalo male in ciidamo lagu daadgureeyo mooyaane diyaarado ha arki ranjigaan iyo waxaan lagu buufiyey ma ahan diyaarado ka qayb qaadan kara cabdisalaan laakiin arrinkan ma sahlana macnihii garoonka aadan cadde diyaarado isqarxiyo ayaa kusoo wajahan
in dowladda Soomaaliya ee shaqaaleeda ku amarto dhulka hoostooda inay galaan arrinkaasi arrin sahlan maahan ma arkaysa macnaheedu khatar intee leeg bay ku tahay shacabka Soomaaliyeed oo maanta inta badan diyaaradaha gobolada xataa isaga kala goosha dibadda macnaheedu ka soo aada garoonkaasi isla markaasna yani xitaa dowlad goboleedyada la leeyahay xamar imaada oo madaxdaasi xasan ay hayaan oo diyaaradaha ma arkaysa macnaheedu soo raacaya kagana dhoofaya garoonka khatar intee leeg bay ku tahay wallahi khatar Soomaali u dhiman ma jirto haday arrintaas haday arrin runa tahay oo macnaha ay sida hadda ay u sheegeen ay tahay oo wax dhab ay tahay khatar u dhiman mare waxa dhacaysa in xamar iyo adduunku ay kala xirmaan in xamar iyo goboladu kala xirmaan maxay ay tahay sababta ninna meel diyaarad la leeyahay qaraxya ka dhacaya ninna diyaarad ku aadmaayo kuwii joogay oo xamar joogay oo qurbaha ka tagay ama gobolada haadeen meeshay ku xanimayaan meelan maxay tahay shaqaalihiiba ka cararo dhulka hoostiisa galeen ninna naftiisa ku biimeyn maayo hadday arrintaasuna xamar ka bilaabato Soomaaliya iyo goboladu waa kala go'ayaan xasan laftigiisa diyaaradda ka degi karin halis bay ku tahay oo muxuu ahaa hadday isqarxinayso diyaaradda ma geli karayo oo meesha hadda ay noqdaan diyaaradaha kuwa aan cidna wadin oo isqarxiya hadday noqdaan waxa weeye diyaaradaha waxaa jira lagu qabtay gaalkacyo kuwa muxuu ahaa daroon iska cidna wadin kuwaas Soomaaliya hadday hadda noqoto in la iska agaasiyo xataa nimanka wasiirada sheeganaya iyo waxa xildhibaanada sheeganaya iyo xasan iyo waxa ra'iisul wasaaraha waxa dhan halis bay galayaan dhaqdhaqaaqii baa dhamaanaysa awal wadanka diyaarad baa loo kala raacayo gobolada lagu kala aadayay xamar iyo Hargeysa inay kala xirmaan Puntland iyo inay kala xirmaan baydhabo maxay meesha laga baydhabo iyo xamar kala xirmaan Jubbooyinka kala xirmaan inay naftiisa ku soo aamin waayo dhulkiina nimankii baa daadsan oo meel walba qodax baa taalo lama mari karo marka waxa waa arrinta ugu halista badan diyaaradihii iskaga gooshi jiray oo Turkiga iyo maxay ay toy kuwii localka iyo kuwii kale internationalka wixii dhan lafooda la carran baa imaanaysa marka waa khatar aad iyo aad u weyn oo soo wajahday Soomaaliya khaasatan magaalada Muqdisho way Cabdisalaan laakiin xitaa haddii hadda macnaheedu aeroboortka diyaarad isqarxisa aanay ku soo dhicin warkan hadda macnaheedu ay sheegtay dawladda Damuljadiid oo shaqaalaha leedahay diyaarada isqarxiya ku soo wajahan ma arkaysa macnaheedu soo khalkhal kuma keeni karto guud ahaanba macnaheedu isu socodka shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta dalka hataa adduunka dhan hadda marka kadib diyaaradahooda waa ka joojinayaan waxay wada joojinayaan diyaaradihii rakaabka qaadayay oo muxuu ahaa adduunka iskaga gooshayo Soomaaliya tagay wixii dhan way istaagayaan xataa hadday wax og yihiin oo arrintan ay og yihiin muxuu ahaa waa waran kugu soo noqonaya laba tuura baa la yiri maxay ay tahay waxa imaanaysa xataa in la kala carro xataa nimankii xalalada iskaga raaxaysanayeen inay meesha ka carraan intay goorgoor tahay baa imaanaysa safaaradii xataa inay carraan Nairobi iyo meelaha u carraan oo amaankooda ay yiraahdaan baan tagaynaa waa khalkhal aad iyo aad u weyn khalkhal weeye maxay ay tahay khalkhalkaasna iyadoo wali waxba la arag inay iyagu ay bilaabaan ma ahayne inay horta bal wax hubsadaan baa la rabay iyadoo wali aan ficil dhicin inay ku bilaabaan ma artay shaqaalaha carrara waxaan u arkaa iyaga laftiroodu inay fowdada qayb ka yihiin sababtoo maxay ay tahay hadday wax og yihiin waxaa la rabay inay meeshooda qaabkay uga hortagi lahaayeen ay sameeyaan laakiin may sameeyaan shaqaalihii bay yiraahdaan carrara nin shaqaalihii difaaci waayay madaxnimada uu sheeganaya maxay tahay ma maareen waayay maxay tahay waxa la rabay waa hore inay ka gaashaantaan oo aeroboorkan sidii loo ilaalin lahaa oo haddii muxuu ahaa sida hadda ay sheegayaan oo kale dhacdo waxa la rabay inay ammaankiisa ay horay wax uga qabtaan muxuu ahaa hadda intaasoo sano joogeen maxay ay tahay marka maanta inay ku argagaxaan oo shaqaale kala orda ay yiraahdaan god ka gala sidii dawacadii ama muxuu ahaa ruwaagii god ku dhuuntay inay yiraahdaan waxa weeyaan waa fashil ka weynayn muxuu ahaa nin badan oo maanta ku haminaya inuu tagana muxuu ahaa gadaal buu dhiganayaa nin badan oo meesha joogana qaabku uga fakar lahaa buu gelayaa Ismaaciil Cumar Geelle dagaalka isagii Xasan Shiinaha ku soo dhex maray iyo dhaarta uu dhaartay ma moodaa xalay toole xamar wixii ka dhacay dadka joogaaba marqaati ka ah hubiyaal iyo macnaheedu cabsi iyo waxba dhacay haddana maanta garoonkii waxa la leeyahay diyaaradaha soo socda adigu marka ka imaan doonaan afka waxaad ku dhifatay in Puntland ay qabatay diyaarada isqarxiyo oo laga soo iibiyay dhanka ay xuutiyiinta
إيران أيانا لقو تلماما ديارة إسقرحية إني aad u soo saarto oo ay ku taageertay Ruushka Ukraine baabax looga dhigay marka macnaheedu diyaaradahan isqarxiya xagee baad isleedahay way ka soo duseen ra'yigaaga horta diyaaradahan isqarxiya waxay u badan yihiin Iran waxay taageertaa Xuutiyiinta Shiicada iyaguna waxay haystaan gantaalo badan oo nooca wili Soomaaliya soo gaarin ama dawladda waaweyn haysan oo badda casoo riirsiga oo dhan ay ka mamnuuceen maraakiibta kaga mamnuuceen iyo kuwa kale oo lidka diyaaradaha labada wax dhan way haystaan waxay u badan tahay inay Xuutiyiinta ka soo galeen Iran dhinaca Soomaaliya bay u badan tahay haddana Soomaaliya waxa la yiraahdaa free xagga hubka marka horta waxay u badan tahay marka inay nimankii muxuu magaca lahaa inay waxyeeleen baa macquula ama arrin siyaasadeed oo haddii isbedbedelay ninkan xasana siyaasadiisu ma fadhido qofka siyaasadiisu haddaysan fadhiyana cadow badan buu yeelanayaa haba ninkii ku dameeyo weeye nin marka haba ninkii ku dameeyay Djibouti awal ku xirnaa maxay tahay haddana maxay Ethiopia laftigeeda waa ku xirnaa maxay tahay Masar buu u galay Eritrea hadda waa taatir waa u galay muxuu iyaga laftigooda xiriirta siyaasadeed ka dhaxeeya wadamadaas oo dhan marka Ismaaciil Cumar Geelo dhul laga haysto oo Eritrea ka haysto markuu Eritrea u galay waxa weeyaan isaga col isku soo hogaamiyay Ismaaciil wadanku la joogaa safaaradiisii baa joogto ciidamadiisii baa jooga wadanku la jooga waa nin dullaala weeye Ismaaciil iyo nimankii gafuurka duubanayay labadiiba inay xaggooda ay ka timi waa macquul Ethiopia laftigeeda oo yiri cadow baynu nahay inay xaggooda ka timaado waa macquul ninkan cadow fara badan buu samaystay maxay tahay meel fayow mare Eritreana birisoo ka tagay ba arki doontaa oo hadda u tagay meel ku saleeyo iyo meel ku xasriya male waana siyaasad xumaysa haddaad adigu inta qaato habartii ku gacan haadisaba iska hoos fariisanayso wax la saxiixayso marka dhibaatada ay leedahay waxa la ii sheegay wadanku waa inuu galan yahay qoladii tiraa wax noo saxiixba uu ku duugo hadday shidaal tahay hadday wax kala tahay hadday muxuu dhul tahay meelo badan inuu saxiixay iyo haddii qashin lagu daadinayo marka ninka siyaasadiisu siyaasad fadhida ma waa iska dulaan wixii rogmanaya iyo wixii burburaya male waana fulay waa ninka hadda la dhulka hoostiisa gala hadduu nin geesi oo wax difaacaya haan lahaa taa ragadina haan lahayd Cabdisalaan su'aashaan ku weydiinay waxay tahay garoonka aadan cadde waa macnihii albaabka laga gala Muqdisho lagana baxo maantay ilaan dhulka iyo cirka dadku ay aad ugu kalsooyin maanta diyaarad waa dareemi kartaa adduunka diyaaradaha insurance-ga say u sameeyaan diyaarad haddii حتى معني جوده هذا اسكود السجار هنا اعتداءات guilty وانترناشنال كرايم ذنب عالمية مركز ديارات شعب سارية هي أما سياسة تودونا بها هذه ماشي اللي قدوا في الهدي اللي ليه هي ديارات اسقر حساب كوسا وجهن جرون كان يعني إيش مقدشو أم الصومالية سيدين نقول يسا آمنك وحنا نقول يسا دت كاسون الجرون هذان صوتها حمر أول كلية عركة يفرني دولكم ما فرني عركي هدي إسبار الله دكتي وحويان أول دولك هو ميل والبسبارة تالي ومحايا توي نمان كانوا ميلي عادي كرانو كنا بتقريان متين الدولة الشاقانية مركا إسبارة هدي عركة الله دكتي هو بدينا وحويان حتى نمان كأواد بيولي المعنى هدي عركة إسبار الله دكتي دادك إسبار الله دينا العلاقة أنه ما عدين كرناه حاجة بدنا وأفضل دايرة دكتان بدنا أول بلغة فايدة سنة مراكيب كلا كتشيرين adoo halka iska maraya waa laga yaabaa in daac lagu raacdo sababtoo nin maxaa maraakiibta hadda badaha Soomaaliya burcadbeed bay ka baqayaan qoryo waaweyn baa ku rakiban maxaa markay arkaan doon soo socota maxay ay toy biyay ku furaan oo la gadiyaan dad badan oo kalluumaysan saas ku maqan baa ogahay laakiin marka Cabdisalaan oo adoo raalli ah damul jadiid idaacad intay timaaday ma dhihin diyaarad ayaa ku soo wajahan isqarxisa garoonka aadan cadde laakiin shaqaalihi kaliya ay u sheegeen iyagu marka ma arkaysa diyaaraddaasi meeshay ka socoto maxay ugu sheegi waayeen shaqaalaha maxaana shacabka ugu sheegi waayeen shacabka iyaga laga rabaa iyaga waxay sheegeen shacabka maxay ugu sheegi waayeen shacabka uma sheegayaano hadday sheegaan waxay isleeyihin waa laydinka sii darayaa marka ama muxuu ahaa siyaasad bay waxay moodeen waxa la qariyo inay siyaasad tahay bay u haystaan marka waxay noqonaysaa inay argagixisay laftigoodu yihiin oo shacabkii argagax bay geliyeen Britain cid soo shaqo tagaysa male sababta meeshii maanta la yiri ka kala carara wixii la yiri ka kala carara waa in meel lagu cadeeyaa
iyadoo waxba lagu caddayn cid soo shaqatay marka xamar waxay gashay godoon waxay gashay isbaaro way gashay oo cid iyo dhulba marka waxaan iyo weliba badda laftigeeda xataa laguma kalsoonaan karo marka nimankii dadka dhibayay way cabsalaanow laakiin macnihii dhacdadan hadda garoon ka taagan aadan cadde waxaa ka horreysay 2 beri ka hor in hoobiyaal ay ku dhaceen garoonka aadan cadde laakiin cidna aanay wax ku noqonin xukuumadda damuljadiidna aan sheegin aniga inaan sheegaan rabay nafsadaydii waa hilmaamay bani aadam baan ahay qalbigaygu waa qafiif yacni qofka bani aadamka qalbigiisu wuu hilmaami karaa wax garoonka maalin cad ayaa la duqeeyey ma arkaysa macnihii maqaasiin bay ku dhaceen hoobiyaasha lama sheegin dowladdii uma aysan sheegin shacabka in garoonka lasoo duqeeyey si la mid ah sidii ciidamada loogu laayay caws weyne iyo meelahaasi ay u qariyeen bay u qariyeen maantana waxaa weeye shaqaalihii hal mar un baa la yidhi carara dhulka hoostiisa gala cidna ha u sheegina marka dowladda intaan wax qarin ah waa maxay ujeeddada ay ka leedahay ujeeddada ay ka leedahay waxay ceebteeda ay qarinaysaa waxay isleedahay haddii ceebtiina la ogaado muxuu ahaa fashilkiinana waa la ogaanayaa midda kale qoryahan waaweyn oo gantaalahan hadda la ridayo oo muxuu ahaa aeroboortka waa runtaa aniga waa arkay cid ma weydiin laakiin qoraallaan ku arkay in xamar lagu garaacay xalayaa la duqeeyey xamar waa oge laakiin waxa weeye magaalada cidda duqaynaysa magaaladu gacanta uguma jirto xamartan dadka lagu caburinayo oo maxay ay tahay maalin walba laga fadwoonayo oo odayaashii dhaqanka iyo kuwii diinta iyo dowladdii hortay beesha yaa xukuma macali adiga su-aalan ku weydiiya xamar yaa xukuma ma odayaasha dhaqanka hawiyaa xukuma ma kuwa wadaadada sheeganaya qowraha iyo u fadwoonaya etoobiya waa xukuma ma xasan sheikh baa xukuma ma qaran soomaaliyeed baa ka jira ma mid qabiil baa ka jira ma diin baa lagu dhaqaa ma odayaasha dhaqanka baa baasha xukuma xamar laftigeeda annagu waanu confuse ka qaadnay oo cid lagala hadlo ma garanayno xaggaan oday dhaqan baa fadmoonaya xaggaan oday muxuu ahaa diin baa fadwoonaya xagga xashud iyo groupkiisiiba wax soo saaraya xagga xildhibaanadiiba waa maaragtay waxbaan xil ka qaadaynaa horta xamaray cid ku xukuntaba lama yaqaano marka maadaama cid xukunta la arag haddana habartii indhalaanma ku ogeyd baa dadcunada ay ku darsatay hadda argagixisa cidkaada haddana la bilaabay marka waxa weeyaan waxa soo socda wax cusub aynaan horay u arag baa soo socda ugu dambayntii sida loogu noolaanayaana waxba ma garanayo cabdisalaan ugu dambayntii adiga ma kuu muuqataa halista hadda airbortka laga sheegay inay dhaboobi karto oo diyaarada isqarxiya markaan in la isku qarxin doono garoomada ma kuu muuqataa mise kuma muuqato mar haddii puntlandna diyaarada lagu qabtay mid weyn baa ay muuqata oo weliba muxuu ahaa ama cadow dad ku ah oo kale ha ka faa'iidaysteen ama nimankii ragga ha ka faa'iidaysteen mid weyn baa u noqota seefna maaha xabar hadda wixii laga bilaabo seef maahan marba hadday iyaga ku dhawaaqeen oo kala carara yidhahdeen oo kabasity ay ku difaaceen dadka waayeen waxbay og yihiin oo iyaga ka tan badan waxaasuna dadkay dul hoganayaan mid weyn baa ay muuqato oo muxuu ahaa argagax weyn baa meesha ka jira oon horey u jirin oo hadda cusub bal meesha xaga dhigatana muxuu ahaa macal cuno waa soo bixi doonaa baa layidhi qolada waxaan samaynaysa way soo bixi doontaa laakiin qola ka taati ka badan weeye hadday hadda iyagiyo aan weli ficil samayn karo orod ku rideen anigu waxa u haystaa awood ka fara badan baa dulkii waay haddii marka garoonkii hadda diyaarado isqarxiyaha kusoo wajahan la leeyahay shirka wadatashiga qaranna macnihii xasan uu doonayo inuu xamar ku qabto mas-uuliyiintana macnihii ay diyaarado ku imaanayaan maxaad macnihii is leedahay ma inay yimaadaan mise inay ka baaqsadaan ma imaanaya iyagu waaba taargeeda jaalis haddii lagu helo waa la khaarijinaya xataa waxaa imaanaysa xasan laftigeeda inuu u tuubaraaciyo oo sababtoo ah nimana uu cili qabay oo qaban waayey iyo diyaaradaha hadda la sheegay isaga laftigiisu kuwa inay qorsoon yihiinoo muxuu ahaa hadhow la yidhahdo waa nimankii muxuu ahaa aeroboorada laga kala cararay baa dilay marka hadduu rabo isaga laftigiisa u tuubaraacinaya oo iyagoo aan dareemin marka ammaankooda iyagaa kasii khatar badan yahay sababtaa kalsooni boqolkiiba boqol mara qaar badan oo ishayaan baa jira ninkaas siyaasadda isku haysaana si toosa iyo si dadbanba waa loo dira marka iyaga waxaan leeyahay muxuu ahaa
ammaankiina muxuu ahaa ha qilqiil gelinina haddii ninkaa xiriirtayda ka dhaxayso si toosa iyo si dadbanba waa laydira marka ammaankiinu ma sugna waan leeyahay khatar badan baa jirta xog rasmi ah oo muuqaalka ka horreeya aan sii daynay in la doonayo hantida shacabka Soomaaliyeed ee kaashka ah ee ku jira bangiyada iyo isgaarsiinta Muqdisho in la dhaco iyo xawaaladaha gaar ahaan kuwa daaroodka iyo kuwa digla oo miriflaha shabaab inta lagu shaabadeeyo Xasan iyo Hawiye ay dhacaan bay doonayaan su'aal baan ku weydiinayaa hawshaasi waxay bilaaban doontaa October iyo wixii ka dambeeya adigu ma qabtaa in shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan daaroodka iyo digla oo miriflaha lacagta kaashkooda ah in xawaaladaha ay kala baxaan intaan la dhicin mise waxaa leedahay dhib maleha ha ugu jirto xamar ما dawladdan ma heshooto waa wax macquul ah Xasan dagaal baan galayaa buu dhaqaale u baahan yahay marka adduunkii uu dawarsan jiray waa soo xiray marka shacabka in la beegsado waa wax meesha ku jira weeye marka hadalkaas ma beenaysanayo boqolkiiba boqol baan leeyahay boqolkiiba 99 malyan boqolkiiba boqol baan leeyahay sababtoo Xasan kama xishoodo waxba kama xishoodo qabuurihii buu ka xishoo waayay muxuu jingadii buu ka xishoo waayay soo dhaqaale raadinaya waa ninka meydka cashuuray marka waa u fududay ninkii meydka cashuuray inuu dad muxuu account-kooda u targetsado waa wax u fudud weeye wax ugu weyn ma ahan ninkii qabuurta cashuura 15 30 xataa kala qaaliyeeyay inuu maanta dadka muxuu account-nadooda fakto waa wax boqolkiiba boqol macquula laakiin xawaaladahana lacag ideymiyo dhihi rabaa oo ma arkaysa macnaheed dagaalka aan ku wado sidoo kalena macnaheed lacagta Soomaalidana wuxuu dhihi rabaa igu soo wareejiya dalka macnaheed lagu xoreynaya isagoo macnaheed hadday diidaan shabaab raba inuu ku shaabadeeyo sida hantida uu kula wareego marka Xasan xaguu u socdaa Xasan wuxuu socdaa Soomaaliya inuu dukun daaku ka dhigay aakhirada aduun baynaan laga fakan maxay ay tooy oo dadna cayreeyo ninkii dhintay baa ka fakan waay nin nool xagee jooga kii dhintay oo labada mitir la geliyay baa 2 mitir uga daba tagay kuwa nool la inuu moorado ugu doonayo mid kale kuwa hadduu daynsi oo dayn ka qaato Xasan 2 sano u haray inuu soo noqonayo in kala male lacagna ma haysto ila dagaalada ma haysto mushaharkii buu bixin waayay marka nin mushaharkii bixin waayay hadaa daynsiiso biritaada cirka roobkoog meeshaad lacagtaada u doonan lahayd marka waxaan leeyahay dadka daynta ka qaadanayo dayna iska siinay haddii aad iska siisaana sida kaga sabro baan leeyahay maxay tahay Xasan marka waxa weeye wuxuu u socdaa dadka adduun iyo aakhirada dadka inuu naar galiyo horumar ma wado maxaa nolol ma wado kuwa ciidanka waa u dagaalamaya oo waxay ku dagaalamayaan oo ku dhimanayaan sababtoo markii dawlad stable joogto muxuu ka fakaraysa noloshooda ka fakaraysa waa loo dhintaa loo dagaalamaa laakiin nin intuu furinta ku galiyo kaaga soo tagaya oo bishaarna ku siinay daawacaagii muxuu meelaha ku qurmayo ama reerka adiga ka dhashay bari lagu waag tuurayo wuxuu ku dhinta meesha ma yaalaan marka ilaa dawlad Soomaaliyeed la helo oo ciidan isku dhafan la helo oo nin cadaalad la helo oo dadku u kala socnayn oo ciidanku u kala socnayn oo darajahan iyo mushahar iyo wax walba iyo tabar nin ummadda dhan u wada cadaalada iyo shaqaalaha dawladda iyo wax walba equal yihiin wax walba stable yihiin ilaa la helo laakiin odaga xunka muxuu habriisi meel walba u dhiibay abyaalad meeshu kale iyo caruurtiisi tan cidna isku aamin mayso cidna intay qaato madaxweyne waa aqoonsana cidna intay qaato maxay ay u dagaalami mayso cidna intay qaato roogaas u dhigi mayso waxa weeyaan waa fashil waay aad iyo aad buu u mahadsan yahay walaalkeenna ayuu ahaa stuudiyaha warbaahinta Southern Media Corporation inoogu warramay waan u mahadnaqaynaa Cabdisalaan ma arkaysa macnaheed sarkaalkaasi military ma arkaysa macnaheed qaabka walaalayaal xaalad cusub ayaa ku soo korodhay dalkii diyaarada ayaa la sheegay xaaladdu waa hadha garoonka aadan cadde waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo walaal kale oo ma arkaysa aan wax ka wareysan doono soo dhawow halistan hadda macnaheed garoonka laga soo sheegayo maxay kula muuqataa adiga ra'yigaaga hello walaalka isaga maxaa ku dhacay mar labaad hello maayaka soo yiri aadan aniga si fiican baa ku maqlaa ma maqashaadi waa lagu maqlayaa hadal walaalkay maxaa tiri okay yaa soo gudbiyay arrintan ma imaaraadkii loo wareejiyay hawada soo wariyay annagu ugu horeysay annaga cidda macnaheed damul jadiid macnaheed cidda u soo gudbisay ma garanayno laakiin waxaanu ognahay in arrintaasi garoonka ay ka taagan tahay annaga sirdoonkeenna macnaheed soo taagan ba hadda
okay raadaarka hawada soo qabtay ila tahay arrimahan oo kale markii waxyaalaha hawada soo galaya hawadii oo dhan baa waxa loo gudbiyay imaaraad arrinta markii la og yahay daroono in la soo gelinayo marka waxaan wuxuu imaaraad ka dambeeya is imaaraad baa loo gogol xaaraya waa waxa aniga la yaabanahay midda kale wallahi waa yaab waxa yaab ah ciidankii marka la laayay wax kasta la sameeyay hawiyas kuma qajirayaan maalinba maalinta ku xigta meel xun bayna sii taagay meel xun intaanan gelin arrinta raba inaan ka hadlo sababta arrintan waxay ka jirtaa buuraha galgala bay hadda ka jirtaa intaanan ka hadlin shacabka Soomaali hal mid baa raba inaan ka codsado oo ra'yigoodana ay ka dhiibtaan war wadankan ma yaana mar dambe loo dhiibin hawiya inuu madax ka noqdo haddii la rabo in la noolaado haddii la rabo jiritaankeena inuu jiro maalintuu ciidanka leynayay yaa waxaan oo kale naga difaacayay maalintuu dhahayay askar baa rabaa ma rabo maxay ahayd ciidan military yaa hawadeena difaaci lahaa yaa baddeena difaaci lahaa xagee baa laga soo geliyaa la leeyahay aadano xuduudaheennii oo dhan baa ballaqan sidii siil sharmuuto baladii aragtaba dalaq iska leedahay Oroma intaa soo galaysa Ethiopian baa intaa soo galay xoutiyiintiiba haddee dooman soo qaataan waqooyiga ka soo gudbaya waaye Axmed walaalkay waxay idul qaado markayse warka macnaa degdega ayaan sii raacinayaa ku jir dhageystayaal daawadayaal garoonka aadan cadde markayse diyaaradaha Turkiga ayaa kacay hadda markayse roonday sameynayaan diyaaradda isqarxinaysa waxa lagu sheegay in ay tahay hal ama labo inaysan ka badnayn oo ku soo wajahan garoonka aadan cadde intaas waxa sii dheer xitaa diyaaradahaasi roondada sameynaya haddii hawada ay soo galaan garoonka ay u soo dhawaadaan wiish baa dhawaaqaya hadda aan kula hadlaayo macnii kala carar baa lagu jiraa yani shaqaalaha garoonka aadan cadde now marka warbaahinta Southern Media Corporation waxay xaqiijinaysaa in ma arkaysa macnii garoonka diyaarada isqarxiya inay ku soo wajahan yihiin mid ugu badnaan labo Turkigana hadda ma arkaysa ay diyaaradahooda roondada sameynaya ay kiciyeen xitaa diyaarad kasta oo ma arkaysa isku dayda inay hawada soo gasho garoonkii wiisha dhawaaqaya oo shaqaaluhu waxa weeye way si argagaxayaan horta xaaladda garoonka waa sidaasi sirdoonka warbaahinta SMC ay sii helayso dhuuxa ma arkaysa diyaaradahan waxay tilmaamayaan in ay yihiin al-shabaab diyaaradihii isqarxinay ay la yimaadeen oo ka soo galay dhanka iyo xuutiyiinta ayaan dhaweydna mar baan idin sheegay xuutiyiinta iyo shabaab in macnaheedu heshiis uu u socday oo diyaarada la siinayo haddaba ma arkaysa tani waxay qayb ka tahay marka sida loo filayo dagaalka Ismaaciil Cumar Geelle iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo bilowday hubiyaashii xalay kuwii daraad garoon ku soo dhacay iyo ma arkaysa macnaheedu Geelle oo yiri waa ka shaqaysan doona Xasan Sheekhow oo habar gidir baan isticmaalaya marka si kasto ay ahaataba xaajadu waa hadha garoonkana waa cabsi ma arkaysa hadda xaaladiisu ku soco walaalkay hadalkaaga wado wal xog baa soo gaartay shalayto oo la ii sheegayay horta waxa la yiraahday buurihii galgala marka waxa la yiraahday meeshaasna haddeertan drone lagu xirxiraya waa drone baa la xirxiraya kuwa kalena oo reconnaissance u sameeya oo drone camerana waa lagu haystaa meesha waa la gartay bay ila tahay intaanan arrintaasi aanan sii faahfaahin wax yar baa ka soo waaba sii faahfaahinaya meeshaasi galgala laba qola isku dagaalaysa la soo wariyay sanadihii iyo bilihii la soo dhaafayay kooxna waa al-shabaab kooxna waa daacish labadoodaba shaardiimeed way qabaan laakiinse labadoodaba waxa lagu garanayaa meeshaas boos xajis inay u joogaan qole boosku u xajinayaan qoladaasna waa wadamo shisheeye oo galbeeda meesha waxa loogu jirana waa khayraadka ku jira hadaa aragti dadkaan oo meel ku kooban meeshaas khayraad baa ku jira ama dahab ama luul ama waxay noqotaba marka labadooda qolo oo isku dagaalayay meesha oo dadka ay dhahayeen inta nagu awoodaysan ha laga gaaro wadamada u kala dagaalamayaan yaa weeye ma Mareykan iyo Koofiyad Gaaba ma Mareykan iyo Ruushba yaa weeye dadka meeshaan lagu kor dagaalamaya waa mid la rabo in la isweydiiyo dadkaan meeshaan ku jirana hal la ogaado ma aha dad iskaga jira meesha ee waa dad satellite u shaqeeyaan
wadamada booska u xajinayaan baa xogtay wax kasta u bixisa yaana waxba been lagu sheegin oo lagu dhihin diyaaradaha soo socday waxyaalaha soo socda militariyaasha number 1 adduunka ugu jira baa meeshan kamid ah umadaha ka dagaalamaysa walaalkay laakiin ugu dambeyntii hadda macnaheedu diyaaradii roondada Turkida hadda markay soo galeen mid kamid ah xataa wala si kala carray wala si cabsaday dadka good hoostiisi oo guri ku hoos yaala garoonka la yiri shaqaalaha gala haddana waa lidii fasaxa la yiri ma arkaysa macnaheedu ordaha guriyiina aada macnaheedu meeshii oo dhan xaaladdu waa qas su'aasha aan ku weydiinahay waxay tahay ammaanka garoonkan iyo dalkan caasimadda sidee buu noqonayaa mar haddii daroon baa soo weeraraysa la yiri oo isqarxinaysa garoonka walaal caasimadda kaliya ma aha tani waxa la dhahaa dowlatus waa la ogaa waa la iska soo hormarinaya yaani dad baa la xinaya taabanaya la leeyahay guriyada kugu soo dhaxgaleena tani looguma talagalin in sababta daroonadaas markay imaadaan ama diyaarada ku dhacaan imaaraadka leeyahay ama Turkiga uu leeyahay waxay og yihiin in xogaha la helayo meesha ka imaadeen sababtoo ah cable-ka soo mara dhulka hoostiisa oo soo gala badeena baa qalabo basaasa lagu xirtaa oo email-ka baxaya laga og yahay oo wax kasta laga og yahay oo hadalkana hadda hadlayo la sii dhageysanaya cable-ladaas baa wax laga baasaasayo wadanka dhan waxyaalaha soo galay waxyaalaha ka baxaya marka hadday isku taabtaan diyaaradahaas mise wax wadan shisheeye uu leeyahay way ogaanayaan meesha ka imaatay waajibkoodana la marsiinaya arrintan waa dowlatus kaliya waxa la arki doonaa siyaasiyiin badan oo saqafada gurigooda korkeeda looga soo tusiyay waxyaalahan walaalle waxa mashruuci la soo qaatay horta dani baa u galayaa hubka dhigistu rabay inuu sameeyo maya lagu yiraahday saraakiisha markuu u tagay hadduu mar labaad uu ku laabtay wuxuu yiraahday hubka rabaa waxa kula soo dagaalamaya argagixisada meeshaas ku awoodeysatay ee daacishta dadkii waxay ugu jawaabeen waxay ahayd horta jawaabta siyan ma baahanba mid jecelaystay waxay yiraahdaan annaka wada dagaal ku jirno hubkana lagama bixi karo laakiin jawaabtaas inay bixiyaan ma ahayn argagixisadan la dagaalamayo inta la dagaalamin Soomaha iridaha ka soo galayaan in laga wada xiro xuduudihii abi Oromo iyo Ethiopian toobaran oo military haysta baa wadanka soo galayo buuraha Koreya oo ku biirayo meesha mushaar looga qoray wiilal isaaqa burco lagu soo toobarayo buuraha galgala waxay ka soo galaan halkaasi Ceerigaab Xuutiyiintii iyo Carabtii baa waxay dooman ka soo qaadanayaan maxay ahayd Yaman oo meesha aan soo galaya markuu lahaa halkaas baan geenayaa lagu dagaalamaya siyaasiyiintan hostes oo dahabka meeshaas ka gurto 100 milyan ay ka soo gasho oo account-nada dibadaha ku shubta ma waxay rabeen ciidankan hadda meesha ku laayaan sidoo mashruuca Xasan Sheekh ugu soo qaatay inuu ciidanka ku laayo miyuu rabay inuu hadduu ku laayo 50 kun oo la sheegay loo toobarayo inuu meesha xoog ku qabsado mise ciidankan hadduu laayaba waxay rabaan Mareykanka saldhigu meesha ka sameysanayo oo sirdoonka inuu ciidan mahayad calooshoodu shaqaystayaal u geeyo dadkan haddii la yiraahdo taa waa la dagaalamaya waa in wadan shisheeya futada lala galo Ruushka waa in la keensadayo Wagnerkii ka sifeeyay West Africa Burkina Faso baa lagu qabtay 3 nin oo Faransiis ah oo xogaha u gudbinayay oo maxay ahayd IT miams computer science ka yaqaanay oo qaar kamid logistic u sameeyeen ummadan kaligood ma shaqeeyaan ee ummadan waa la shaqeeyaa Mareykankana kaalintiisa uu ka soo bixi waayay waxba yuunan imaaraadkana meesha ku fadhin uu ku dhihin 10 kun oo ciidan ah ku toobarayo buurta hoostooda fadhinaya buurta hoostooda buurta hoostooda 10 kun oo ciidan ah 10 kun ma dhaafi karaan waxaan suurtagal ma noqonayso Saciidani baa la hadlayaa nacday korkiisa korte wuxuu noqday mar maxay ahayd mashruuca baastada wadanka uu qabsado waa isgaranayaa in si mara ma rabe in si gala ma rabo hadaa rabtidna waa si galaya iyo mar ay noqoto xaaskiisa sida loo soo warinayo inuu xiro maxay ahayd mashruuca caanaha seeba mashruuca caanaha oo dhan ugu xirtaa magaaladan war waxyo uuska weynaaday adiga iyo siyaasiyiintii ka horeeyo oo dhan ummadan dhibaatada ummadda ku haysa hadii inaan ka qaadeen meesha ka wareega waa in sida ugu dhaqsiyaha badan shacabka maxay ahayd u soo galiyaa meeshan Turkiga ama Ruushka Mareykan cayaar buu meesha ku wadaa iyo reer galbeedka
ma su'aal baa ii qabtaa mise waan ka baxaa walaalkay waa mahadsan tahay waxaan rajaynayaa macnii ra'yigaaga waan dhagaysanay waa ku mahadsan tahay 100% waxaan rabaa ma arkaysa inaan soo dhaweeyo ma arkaysa walaal kale oo doonaya meeshan inuu ka hadlo sheekada sida runta waa hadhahadha waa xumaanteeda waa meel xun bay ka degtay waxa qadka si toos ah ugu jira diini baa ku jira diini ma nala joogtaa hello وأنا لا تشوفه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ديني وقرانك كلا عرر كان كتاجن محي كديجن تاي ديارات درون وإسقر حساب كوسا وجهان لليه حمر هلو رالي وقف يسوعيه إن وحفاظ وحاسك العرر كاسي وحاس ومشو ديني وحن شعر إنا هذا شيء هذا هذا لينين إنا كفصحنا هلو هلو waxaan la sheegayo garoonka cararka ay waxa horta waxaan hubna maahan nimankan Xasan Sheikh Yaawiye waxa ay wadaan waxba ma ahan meel walba waxay rabaan inay dagaal iyo dab ka shidaan meel walba lagu dagaalamayaa badaan hadda la isku haystana inuu saxiixay adaaba loo sheegay marxaatina cid walba waa ka ahayd markii dambe asaa qirtay oo yiri anuu Itoobiya bad uma diidani ma fahanti marka ما غيزا ديني إنا هذا الشيء اسكو داينو ولا قد جيسنا ما غيزا هذا ديني أو هذا بليز هلو مركا وحال الشيء قرح بندعها هي مشان مقدشو بعد ديارات با اسخر حنا يسيا وحاس waxaan hadda anagu warahayna ma ahan laakiin se waa wax dhici kara meesha fawda ka jirta ayaga la turkooda iska aarsanaya oo waad ogeyd hadee rooblaba in la yiri gabadhii graan ahayd waa la diray amina waa la diray dad badan waa la laayay dadkii kici waa si adiga si dadku ka caada lagu dilaya waa tii la yiri ma garad marka waa laga yaab ma maqlaysaa waa lagu maqlay diini hadal istabadhi marka waxa laga yaabaa inay ayagu ismishimayaan oo qaraxyo isu geysanayaan ba laga yaabaa waxa waa mooryaan ay ka futay marka haday ismishimayaan iyo haday isleeyaan anaga shaqadanada ma ahan anaga dagaal bay nagu wadaan waxa noo yaala dhimasho iyo dhaawac sidaan isaga dhicin lahayn waa inaan falankeeda qabanaa hadda weerar bay anaga nagu soo qaadeen shala daraaq waa nagu soo qaadeen tikoris waa nagu soo qaadeen intaba ayaa ku jabay waxa dhan oo ay u dan leeyihiin waxay rabaan inay dadka dhulka qaataan wax kale ma doonayaan midda idinku hayaan ba anaga nagu hayaan marka in la iska dhiciyo mooyaane hawiye faa'iido kale oo ay soo wadaan ma leh waa ka way diyaaradahan hadda ma arkaysa macnihi intay ka yimaadeen baa isleeda diini waa ku maqlaya taas hadda war uma hayo war kama hayo waya walaalka isaga aad buu u maasan yahay walaalayaal barnaamijkan halkaasaan kusoo gooynaynaa haddii ilaahay uu ka raali noqdo wixii kusoo kordhaana khatartaan ma arkaysa aan la dhaylsan karin cabsida iyo kala cararka garoonka aadan cadde wixii kusoo kordhaa waan isla joognaa biidni illaahi baari laakiin magaalada Garowe ama Puntland waa ay karkaraysaa iyaduna ogaadeen iyo majeerteen ayaan dhaweyd macnihii wiil majeerteen Ciise Maxamuud ayay ogaadeen Kenya ku qabteen baabuur bay ku garaaceen ma arkaysa macnihii film bay ka soo duubeen waa natiijada ka dhalatay waxay noqotay in ma arkaysa macnihii majeerteen iyaguna ay qaawiyaan ogaadeen ay garaacaan film ay ka soo duubaan hadda xaajadu waxay taagan tahay in ogaadeen ay ka soo bixi la'yihiin guryahooda Puntland oo dhan gaar ahaan Garowe nimankii Ciise Maxamuud waxa weeye xisaabay la soo baxeen masaajidada xataa inay ku tukadaan bay kari la'yihiin ogaadeenka fidnadaasna waxaa ka shaqeeyay dhalinyaro ogaadeen ayaa bilaabay damajeerteen iyaguna waxa weeye xisaabtaysa la yimaadeen hadda waxay leeyihiin nimayo gogol aan dhiganno ogaadeenku aan kala gar dhiganno sidaas ay leeyihiin marka xaajada Garowe ama Puntland sidaasi afwan xaajada Puntland ama Garowe iyaduna way karkaraysaa macnaheedu arintii waxay dhalisay in masaajidada ay soo aadi kari waayaan ogaadeenka jooga Garowe iyo Puntland marka musiibadan waa laga shaqeeyay kumana faraxsani ma arkaysa arrinkan Cabdisalaan waa nagu soo laba noqotay waxaanu jecelnahay in ma arkaysa macnaheedu aan gabagabayna Cabdisalaan sheekada dambe baan ugu soo noqday ma garato 2 daqiiqad haysataa laakiin waa inaan ka baxaa haye horta marka koowaad dagaalka ka socda meesha la yiraahdo Seeyona dagaalka ka socda
oo lagu qaaday meesha halkaa degan ee cumar dheer ee weerdhac waxa weeyaan horta gardarraana ma guulaysta baa la yidhi 4 maalin buu dhacay 4 maalinna maantana waa socdaa baa la yidhi marka waxaan leeyahay maadaama ay isu soo bahaysteen oo wacaysla ku jiro habar gidir oo dhan ku jirto dudubla ku jiro waxaan leeyahay beelaha leelkasaya ma jeerteen agdaga waa inaad dagaalka gashaan sababtoo waxa weeyaan dagaalkan waa dulmi weeye dhulkoodii baa loogu tagay dhulkoodii baa lagu dagaalamayaa hadday gardaran yihiin aanu ninkii celin lahaa waana nimankaas mareexan oo wardhac oo celin lahaa haddii laga gardaran yahayna oo dagaalkii laga joojiyo dhuuso mareeb ilaa iyo gaalkacyo laga soo gurmaday waxa weeye waa in loo gurmadaa iyagana gacan la siiya taas baan ku baaqayaa waxaa soo hartay ciise maxamuud muxuu ahaa garawe horta waa run anuu habeenkii horaan ka digo waxaan ku yidhi arrintan wala walba ardaal waa leedahay ama waa leedahay muxuu ahaa gaangays waa leedahay odayaasha dadka intellectualka waxgaradka oo beesha ogaadeen oo tolka nahay arrintaa waa inaad ka jawaabtaan oo muxuu ahaa intaysan meel kala gaarin waa inaad wax qabto odayaasha oo aamuseen dee gaangayskii dee waa kaasoo iyagiina muxuu ahaa fawday bilaabeen inkastoo hadda odayaashii ay wada fadhiisteen oo xalay la wada hadlay oo wixii waxgarad ahaadoo puntland joogay oo ogaadeen ahaa iyo odayaashii nabadoonnada gobolka nugaan xalay la wada hadlay gabagabadii wixii lagu gabagabeeyey ma ogi laakiin arrintaas waa lagu gudan jiraa muxuu ahaa khaladkuna wuxuu ka yidhi dadkii dhib ka geysta waxaa la yidhi ninkii candhuufadaadu gaarto gacantaadu ha gaarto nimankii qaboojin lahaa oo markay yidhaahdeen nimankan waa niman annaga nagu dhex dhaqano waa qabiilo kale oo maxay ahayd toy ay arrintii ayagii baasiin kusii daareen arrintii way fiday foolxumooyin fara badan baa dhacay anigu labadaba waa fiirsan waaye kii ciise maxamuudna waa fiirsan waaye markaas kuwii kalena waxay samaynayeen waa fiirsan waaye sababtoo labaduba wax xun ma lahayn laakiin waxaa la rabay waxgaradku inay arrintan daahiyaan oo wax ka yidhaahdaan baa la rabay oo ay qaboojiyaan laakiin may samayn dhibay dadku u dhibaya inay buu ahaa inay baana nimanka doonayay sirdoonkay ogaadeen oo muxuu kililka shanaad bay ahayd nimanka soo qabtay furana danihiisa buu ahayd wuxuu annaga nagu matalana maahayn waxaan raalli ka hayna maahayn kuwa marka waxaa ku caytabanayna waa kuwa laleeyahay gaangaysna waa kuwa kasii caqli xun weeye marka arrintaa waxaan leeyahay intaa hadda ay gaartay yaysan dhaafin baan leeyahay waan ku baaqayaa macalin intaasaana kusoo gabagabaynaya assalaamu calaykum wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu garoowe arrinteedu way karkaraysaa macnihii natiijadu waxay noqotay wiilkii majeerteenka ahaa ee baabuurka ogaadeenka ay dhex geysteen dhallinyarada ay garaaceen natiijadeedu waxay noqotay in ogaadeen isaguna sida oo kale la yeelo dharka laga dhigo garoowe maantana masaajidada ay ku tukan la'yihiin puntland wixii ogaadeena guryaha ay soo dhaafi la'yihiin marka fidnadu waxa weeye way hurudaa qof baa toosiya faan ma noqdo qof iska socda meel adiga ah ku badan tahay intaa qabatid oo aa garaacdid oo fiidiyow aa ka soo duubtid haddii sidaas aad samaysid adiguna meel aad ma arkaysa macnihii marti ku tahay oo lagaaga badan yahay dadkaaga waa lagu samayn karaa sidaasi marka horta sidaasi libin ma ahan wax lagu faanana ma ahan wanaagna ma keeno waa ka digaya xaajadaasi in la qaboojiyana waan qabaa majeertanka iyo ogaadeenka gudahooda walaalayaal garoonkan aadan cadde dowladdiina ay ka qarinaysa shacabka shaqaalihiina god hoostooda gala la leeyahay diyaarad daroona soo socda oo isqarxinaya xaajadu waxaa weeye meel xun bay maraysaa wixii intaa ku soo kordhaana waan isla joognaa muuqaalkan muuqaalka xiga ka hor firdowsa